soo dhawaada saaxiibayaal waa mar kale iyo muuqaal wanaagsan. Muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay bulshada intooda badan waxay ku mashquulaan bilowga sanadka iyagoo markuu sanadku uu bilow yahay ahdaaf dejiya taqani warqad qataan xamaasad u haya in sanadkan ay guulo xaqiijiyaan oo markasta ay focuska ay diiradda saarayaan sidii ay sanadkan horumar u lahayn. Laakiin inteena badan markuu sanadka u dhamaanayo isma weydiino gabagabada sanadkaasi wixii noo qabsoomay iyo casharadii aan baran karnay iyo sanadkeena sida uu ahaa isma weydiino inta badan. muuqaalkan insha Allah tacaala waxaan rabaa inaan kula wadaago 5 su'aalood oo ay qasab tahay in aad isweydiisid inta uusan sanadka cusub ku bilaaban. haddaad nagu cusub tahay waxaan ahay macallin cigaal qoraa youtuber bixiya talooyin iyo tababar ku saabsan waxbarashada iyo horumarinta shakhsiga. haddaba su'aasha koowaad ee aad isweydiinaysid waxa ay noqonaysaa waa maxay waxqabadkii ugu weynaa ee sanadkan ii hirgalay. dabcan su'aashaas markaad isweydiisid waxaad ku qasbanaanaysaa inaad dib ugu laabtid sanadkaaga dabadeeto aad qortid dhammaan waxyaabihii sanadkan kuu qabsoomay in aad qortid waxaasaan qabtay. markii aad qortid waxyaabaha sanadka aad qabsatay ayaa waxaad ka dhexli kartaa wixii ugu muhiimsanaa ee kuugu weynaa sanadkan in aad qabatay. haddii ay dhacdo marka in aad weysid sanadkan wax muhiim ah oo aad iyo aad kusoo jiita oo sanadkan aadan qaban, haddaba ka faa'iidayso sanadka soo socda haddii ilaahay idmo in aadan sanadkan la mid noqon oo sanadka soo socda haddii ilaahay markuu gabagaba yahay inaysan kugu dhicin in aad garan weysid wax muhiim ah oo noloshaada sanadkan aad kusoo kordhisay. su-aasha labaad ee ay tahay in aad isweydiisid markii sanadka uu gabagaba yahay waxa weeye sanadku dhaqso miyuu iga dhammaaday. intana badan bulshada waxaa aragtaa markii la yiraahdo sanadku waa gabagabo waxaa arkaysaa dad badan oo ku dhahaya sanadku boobsiis badnaaya sootii haddeertan January la joogay hadda satuu sanadku bilow ah waa maxay sanadka sidaan u dhammaanahay. wallahi sanadkan waa boobsiis buu ahaa. dabcan waxaas oo dhan waxaa la yiraahdaa waa cudurdaarka dadka aan shaqooyinka diyaarka u ahayn, dadka aan horumarka diyaarka u ahayn, dadka aan ogolayn inay isla xisaabtamaan. haddii aad aragtid sanadku adiga oo dhaqso kaaga dhammaaday oo January iyo bisha hadda December ay bilaabanaysa in aysan wax farqi u dhaxayn haddii aad aragtid adigoo oo noocaas ah waxaad ka mid tahay dadka aan waxba badan sanadkan qabsan. waa inaad ku didaashaa marka haddii ilaahayna sanadka soo socda in aadan howlahaas oo kale dib ugu laaban. haddii aad tahay qof waqtigiisa ka faa'iidaystay oo maalin kasta muhiimadda saaraya waxqabadkiisa iyo sidii uu horumar ku samayn lahaa, dabcan waad dareemi kartaa sanadka in uusan wax dhaqsa la yiraahdo aysan ahayn oo sanad nadiif ah oo noloshaada A iyo B iyo C iyo F intaas oo tira aad qabsatay ay ku soo martay. laakiin haddii aadan waxba qabanin dabcan waxaad ka mid noqonaysaa dadka sanadka u dhaqsa uga dhammaaday. marka su-aashaas weydiinaysa waxa weeye sanadka dhaqsa kaaga dhammaaday dabcan waxaad ka mid tahay dadka aan weli u diyaarsanayn in ay ka faa'iidaystaan sanadka soo socda cusub. marka waxaad ugu diyaar garoobaysaa su-aasha noocaan ah in sanadka soo socda haddii ilaahay idmo aysan sidoo kale aysan kugu noqon oo sanadkan ku dhammaanaya aada dhihin sanadka boobsiis badnaaya goorma dhammaaday. waa inaad maalin walba ka faa'iidaysataa sanadka soo socda haddii ilaahayna bil walbana ka faa'iidaysataa dabadeeto sida caadiga nadiifka 12 bilood sanadka isagoo ku dhammaada ayaa dareemi doonta. su-aasha saddexaad ee aadka muhiimka u ah ayaa tahay in isweydiiso waxay noqonaysaa maxaa rabtaa inaad sanadkan kusoo gabagabaysid. sanadkan maadaama uu sii dhammaanayo ama howlo fiican baa qabsatay ama waxba maada qabsan, wax kastoo aad tahayba maxaad doonaysaa inaad sanadkan kusoo gabagabaysid. ma waxaad doonaysaa inaad sanadkan kusoo gabagabaysid kitaab akhrisid oo diiniya, ma waxaad doonaysaa sanadkan inaad kusoo gabagabaysid buug akhrisid, ma waxaad doonaysaa sanadkan inaad kusoo gabagabaysid course yar oo kooban aqaati maadaama waqti badan sanadka uusan ka dhimanayn. ma waxaad doonaysaa inaad sanadkan kusoo gabagabaysid cibaadadaada oo aad sare u qaadid. ma waxaad doonaysaa inaad sanadkan kusoo gabagabaysid inaad caafimaadkaaga checking ku samayso caafimaadkaaga baartid, mise waxaad doonaysaa in aad sanadkan kusoo gabagabaysid seminaar aad iyo aad qiimihiis u sarreeyo. weligaa ma degsatay hadaf? ma aragtaa markuu sanadku dhammaado adoo hadafkaagii ay kaaga hirgaleen wax yar, mise aragtaa adigoo oo qabtay howl ka baxsan howlihii aad hadafka u degsatay. marka sanad kasta uu dhammaanahayo ma isku canaanataa dib u dhac? bilowga sanad kasta go-aan ma ku gaartaa isbeddel nafeed? haddaba waxaan kugu casuumayaa seminaarka sanadka. haddaba haddii aad doonaysid in aan sanadkan kusoo gabagabaysid seminaar wax badan kaa tara, waxaan rabaa inaan kugu casuumo seminaar ay qabanayso xarunta arrimaha waxbarashada ee aqoon dalab.
seminaarkaas oo haddii ilaahay idmo dhammaadka sanadka markii 5 beri meelahaas ay ka dhiman tahay qabsoon doona haddii ilaahay idmo. Seminaarkan waxaa qaban doona dad bulshada sumcad iyo maamuus iyo magac weyn ku leh. haddaba waxaan leeyahay seminaarkaas isu ku sheegin linkigiisana gruupka commentiga koowaad ayaan ku dhigaya. su-aasha afraad ee isweydiinaysa waxay noqonaysaa maxaa sanadkan iska bedelay dhaqaalahaaga, maxaa sanadkan iska bedelay xirfadaada, maxaa sanadkan iska bedelay aqoontaada, maxaa sanadkan iska bedelay caafimaadkaaga, maxaa sanadkan iska bedelay cibaadadaada. runtii waa su-aalo tiro badan laakiin waxay u baahan yihiin inaad inta meel fadhiisatid aad ka jawaabtay aad tirahdid sanadkii 2024 markuu bilaabanaya dhaqaalaha soo galaya intee u ahaa, hadda dhaqaalaha soo gala waa maxay, masle intiiba aqoonteeda sanadkan waxaa ka bedelay hadday ahaato dhanka diiniga iyo hadday ahaato dhanka kaleba. xirfadaha aan leeyahay oo aan ku shaqaysan karo sanadkan wax ma iska bedeleen, cibaadaadkayga sanadkan sidee buu ahaa, sanadkan iyo sanadka hore wax isbedel ma u dhexeeyaan. dabcan caafimaadkayga sanadkan wax checkina ma sameeyey, meel aan ka shakisanahay baaritaan ku sameeyey, caafimaadkayga exercise ma sameynayay iyo cabid fiican ma sameynayay. alla mustacaan waxyaabahaas oo dhan waa in aad jawaabahooda qorta. su-aasha u dambaysa uguna muhiimsan waxa weeye haddii sanadkan dib loo celin lahaa waa maxay halka qalad ee asixnayd. dabcan noloshan waxaa la yidhahdaa waa qaladaad baan wax ka baranaa, maalin kasta qalad ayaanu sameynaa dabeeto markaas waxaan isku daynaa inaan qaladkii dib u saxno. marka su-aasha ugu muhiimsan waxaa weeye haddii sanadkan laga yaabay lacala dib lagu celin lahaa waa maxay qalad aad gashay oo aad ka calaamadaysa qaladkaas aad sixi lahayd. dabcan waa dareemi karnaa inaan sanad dib loo celinin oo sanad iska dhaafay second insu dib u laabanay, laakiin macnaha waxaa laga jeedaa su-aashan muhiimadeeda waxa weeye si sanadka soo socda ama sanadka soo socda qaladkaasoo kale uusan kugu soo laaban waa inaad qaladkaas aad calaamadaysataa oo aad barataa oo aad hadda kadibna ka digtoonaataa in aadan mar labaad aadan qaladkaas sanadkaas aad gashay aadan dib ugu laaban. waxaan rajaynayaa in muuqaalkan aad iyo aad uu ku anfacay. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. ilaa muuqaalka xiga. bye bye.